إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله إبراهيم خليل الله إسماعيل ذبيح الله علم علي خلق الله لا إله إلا الله فنوح مع أهله واستوت على الجود ما كان يقوله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر الله أكبر إنه هو التواب الرحيم الله أكبر الله أكبر وهدى والبشرى للمؤمنين الله أكبر الله أكبر إنك أنت السميع العليم واعلم إن الله عزيز الحكيم. أين ميثاق الوفاء أين برهان الصفاء ولماذا غبت عني في دهاليز الجفاء أين ميثاق الوفاء أين برهان الصفاء ولماذا غبت عني في دهاليز الجفاء أي عذر يا صديقي لك في قتل الإخاء أم تراها صحبة وردية وقت الرخاء أي عذر يا صديقي لك في قتل الإخاء أم تراها صحبة وردية وقت الرخاء فإذا دارت رحى الأيام واشتد البلاء ثم ناديت وناديت وقد ذاب النداء وتهاوت أحرفي موتى على درب العناء وارتمت أشلاء أحلامي على صدر الرجاء فإذا دارت رحى الأيام واشتد البلاء ثم ناديت وناديت وقد ذاب النداء وتهاوت أحرفي موتى على درب العناء وارتمت أشلاء أحلامي على صدر الرجاء يا رجاء صار في عيني هباء في هباء يا صديقي كيف صرنا فجأة كالغرباء وتباعدنا كبعد الأرض عن جو السماء كيف مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما أجمل أن تبذل المعروف لمن يحتاج. وحي يراي على الكسور darar weyne dooxa weyne ah dadku waxay sheeganayaan baahi aad u badan oo aan cid في رضا رب العالمين. حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. لديه محب الخير يسمو ويفضل وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka waxaa ka sugnaatay rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi inuu laga cabto inta kale oo dhan kale ka cabtay dabadeedna waxa loo baahan yahay xilliyadan علي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وخطوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه ما أنت هلكن وبشو تهاي مارش كودة وحان إن شاء الله كدو بدنا مشروعا بيها أو أي مارتي سمايسي أوركا جرجاركا بيها جيسكا أفريقيا oo urur yar oo imika uun maartay dadka maartay doonaya wixii ay maartay ay kari karayaan inay u qabtaan ilaahayna subxaanahu wa ta'aala ugu dhawaanaya taasoo ay maartay dadka dibadda ku maqan qaasatan wadanka Ingiriiska magaalada Bristol ugu sii weyn tahay ay maartay ay dadkii walaalaha halka joogay waxoogaa lacag ay ka soo ururiyeen marka waa arkaysaan maartay xoolihii noola iyo dadkii oo maartay baahida haysa baahiduna inta way ka sii balaaran tahay ilaa farceel baanu halkan ka qoodnay waana dooxa weyn ee magaalada xitaa Hargeysa ay inta badan ay biyaha ay ka hesho waana dadka dhulkan u dhasho dhan way garanayaan darar weyne marka waxaan rajaynayaa maartay in dad badan oo walaalahay markay arkaan maartay arintan ay ku soo dhiiran doonaan sidii mar walba khayrka ugu soo dadaalaan dadkooda walaalahooda inay maartay ay soo caawiyaan waayo nolosha waxa ugu horeeya waxa weeyaan waa biyaha إلهي وحو قرآنك كويري وجعلنا من الماء كل شيء حي وحكست الله جل جلاله وحو بيان كابور مركو دي بيانا وان كنو لني مركا وحكاسو قنات الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يدي إنه لبا حديث كل شيء إنه لبا قف مدول با مارتي لغو تشنيي إنه حيوان أي ورابيين مركا أجركو دون حق إلهي أدبو ونيهي marka waxaan aan maartay Ilaahay ka baryayaa inay dadka walaalihii mar walba ku doodaan dadkooda walaalaha baahi weyn ba halkan taala qof arkay mooya qof kale loogama sheegan karo wadanka iyo maartay dadkeena inagu hadaynu dibadda maartay waxyaabo badan oo wanaagsan waa layna tusaa waxyaabo badan oo dhibaatooyin way ka jiraan dalka wax wanaagsan way ka jiraan laakiin baahi badan baa taala waxa waa kaysan xayawaankii biyahaas maartay waa doon maanta inay xayawaankii dadku way dhimanayaan iyo maartay xoolaha nool ay ku nool yihiin dadkanu neefka xoolaha bay ku nool yihiin marka labadaba waa arkaysan in noloshoodii waa kuwa maartay riyihii oo xoolaha yar ay dadkan ay haystaan ugu badan dhulkan degan ay biyihii maartay ay marka ceelkii oo furnay bay maanta saa uga cabayaan ceelasha kalena waa wada saas weeyaan ilaa saan soo sheegay afar ceel baan meeshan ka sameynay marka waxaan rajaynayaa maartay insha Allah biidnillah inay maartay dadka walaalaha ay mar kale ceelal badan oo kale u baahan yihiin dadkanu meel kale oo aan ahayn degmadan darar weynana waa looga baahay biyaha marka inay waxtarka dadka oo biyuhu ugu horeeyo ay maartay soo caawiyaan dadka walaalaha waxaa la maartay inta ka soo ornaa waa 10 pound iyo 5 pound iyo 20 pound dadka walaalihi ay noo soo dhiibeen insha Allah anaguna amaanadii sidii baan maartay ku fulinay insha Allah Ilaahay baan naga abaalmar ayagana ka abaalmar ku soo bixiyay
marka waxaan iminka ku soo dhaweynayaa qof cabdishakuur oo maartay mashruucan fuliyey oo khibradna u leh ceelasha iyo maartay arrimahan oo naga caawiyey mashruucan insha Allah biidna Allah tacaala isagaan iminka ku soo dhaweynaa falyatafadal cabdishakuur mashkuur بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إلهي سبحانه وتعالى أيام هذله وحكلوا أينو مهضنا عدي سواء باب شيء مشروعا كنتي أو جهريو شيخو ساو شيء باهي بكرت أدو بلارن أو أن إن ليسوت الماما مركا أن موقتو الله أركو waxyaabaha hadiya jeeraale baahida ugu weyn ee waddanka ka jirta arrinta la wada ogsoon yahay biyaha ayaa ugu horeeya gaar ahaan dadka dan yarta ee hadiya jeeraale biyahan u baahan ee aan qodan karin awood u haynin dadka halka uga soo huray ee u yimi u soo naxariistay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala abaalkoodii hamar iyo miisaanka xasanaadkana Ilaahay ha ugu haasiyo cidii kale ku soo dayatan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaanu baryaynaa in tashdiic ay u noqonayso iyo dhiirigelin aad iyo aad u weyn goobtan aynu taaganahay oo ah waqooyiga darar weyne dooxa weyne ah dadku waxay sheeganayaan baahi aad u badan oo aan cid quri dabooli karinin way jiraan in hay'ado yaryar oo mararka qaarkood bixiya ay jiraan ceelashan oo kale meelaha kala duwan hase yeeshee marnaba ma noqoto mid baahida sida loo baahan yahay ay u muuqato daboolaysa saa awgeed waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo aragta mashruucan inay ku soo dayato arrinka ay soo fuliso waxaan doonaynaa oo kale dhiirigelin inay noqoto duubitaankan iyo ciddii maaragtay aragta arrinka ay la soo xidhiidho ay sheekh la soo xidhiidho iyo ciddii kaleba waxaan doonayaa inaan ku wareejiyo oo aan kelmad siino gudoomiyaha amba deegaanka meesha odayaasha qayb ka mid ah oo ka hadli doona sida ay ugu baahan yihiin iyo sida arrinku yahay inoo faahfaahin doona magacaagu muxuu ahaa sheekh nuur maxamed ayo nuur maxamed calaaka soo taag magacaygu waa nuur maxamed cali ilaahay baa mahadle waxaa kaloo mahadle dadka islaamka ay noo soo deeqay mashruucan waxaa kaloo mahadle kuwa ka soo qaaday waxa weeye dhulku waa dad reer miyiga oo reer baadiya dalkuna waa afakaadh colaada ka dhaceen oo aad u jilicsan waxa aanu leenahay waannu mahadnaqaynaa noona soo kordhiya oo noogu soo dhiba kuwa sida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu كلو مقعة الشيخ يسخر بنرجع مسؤول كلا أو ديجان كمقعة الشيخ مقعة وحويان عبد الله جامع كوشن هدي عن باهدا يا رمهن ديجان كهدلو ديجان كوا ديجان بلارن وميجا لو دقني هاي waxa kaloo imika dhawaan bishan Maarch ee saddexaad soo baxay dadkii beelaha u guuray dooga yara doontay waqooyiga kala u kacay deegaanku waa deegaan aad u ballaaran baahidooduna aad iyo aad bay u fara badan tahay dadkan yacni waxaan soo bixiyayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahayna abaal celintooda ha ka siiyo dadkan kale ka soo qaaday mashruucan oo fuliyayna aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin talabaad waxa weeyaan ta koobaad horta baahida ugu koobaad waxa weeyaan dadka miyiga in wax loo qabto oo ceelasha loo sameeyo ilaa dhowr iyo 10 ceel baanu maanta u baahanahay ta kale waxa weeyaan meesha dad badan oo waxa weeyaan imika magaalada Hargeysa gebigeediba halkan looga dhaamiyaa wax yar baan u malaynaynaa inay Hargeysa ay geedeebla ka cabto inta kale oo dhamay halkan ay ka cabtaa dabadeedna waxa loo baahan yahay xilliyadan imika bishan Maarch la gelayaana waa xilliyada ay ugu adag tahay dadkuna dad kale oo iyaguna beeralay oo deegaanada jira waa dad xilliga baahidu ugu badan tahay haddii aad naloo heli karaayo andardhaamyadaasuna waa muhiim oo dhaam hoosaadiyo weeyaan oo biyihiiba kor u soo baxaya marka taamiigu priority-ga la siinaya waa number 1 iyadu taa labaadna wixii walaalahaya ay nagu soo dari karaan wixii dambe hadii ay ku soo dari karaan andardhaamyada biyaha kor u soo qaadaya dhaam hoosaadyada taana aad iyo aad baan ugu baahanahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka حاج مقعة أيوة أنا داهر أحمد جامع وكورن باهي ده يصير الله قوي إياه حوله marka hore horta ilaahay baa mahadle marka meeshan waxa weeye magaalada Darweyn la yiraahdo waa tog aad iyo aad u ballaaran marka biyaha caan buu ku yahay
markaa magaaladu aad bay u daaweynti iyo beerahanba hargeysa wax yar bay ka dambaysay markaa miyi iyo magaalada dee noloshu waa biyo markaa aad baa loogu baahan yahay markaa iminka ilaa halkanaynu joogno ilaa baxara saafiyada xoolaha iyo way ka cabbaan markaa ceel iyo laba xooluhu way ka bataan meelay isu kala maraanba way waayaan markaa waxaannu doonaynaa dadkaa noogu soo deeqay yaa in ilaahay jaasiga ka siiyo ay noola soo kordhiyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay la tahay insha allah waa aragtay maan maranaya walaalaha daawan doona insha allah ma garanaysaa mashruucan daawan doonta yar ayaanu qabanay ee wax yar ka baahida jirta ee ka jirta dhulkan ama dhulkeennaba waa ogtihiin xooluhuna aad bay imika u soo socdaan oo intana arkaysaan wayse soo dabahayaan ceelkana ilaa maqribkana saas u soconayaa bay maartay odayaashu noo sheegeen marka dee baahida waa taas wixii yaraaye aanu idinka soo urnay walaalayaal ee qof waliba ilaahay uu dartii ugu soo dheedo wax yar maaha waxa ilaahay loogu dhowaanayaa ayaa waxay keeneen in maartay maanta dad iyo xoolaba maanta ay ku noolaadaan oo ay ka maartay dee ku noolaadaan oo dee adiga arkayo dee xoolahaasay dadku ku noolyihiin xoolihii hadday baktiyaan ayaguna way baktiyayaan marka waxaan ku maartay sidaan markii horeba sheegay waxaan odhan lahaa dadka walaalihii mar walba lacagta innagu markaynu xaggaa joogno dee waxway lacagtayna soo gasho wax badan baynu soo dirnaa laakiin haddana wax badanna waynu yaro saydhsaydhinnaa marka one poundka walaal aad maartay soo dirto ama aad jimciyeed ku caawiso ama dad walaalaha aad u soo dirto wax weyn bay halkan ka tarayaan marka leega baahida halkan taallo aad bay u badan tahay oo u ballaaran tahay dee waddankeenuna wuxuu marayaa marxalad maartay maanta adagoo maartay dee maartay dadku aanay waxba haysanin intaa qalbiyaddii dhaqaale waddanka ma jiro dakhli ma jiro waad ogtihiin waddankeena batar kama soo baxo sareecad ma lihin waxba ma lihin dadkeenu dee maanta neefkaa xoolaha aad arkaysa maanta oo hadduu biyo waayo hadduu maartay roob waayaba dhimanaya bay dadkeenu inteena badan aynu ku tiirsanayo miyi nolosheennana inagu waaba miyiba dee oo maanta dee dad magaalo shirkado iyo mashaariic iyo wax kule ma lihin marka waxaan odhan lahaa walaalayaal waxyaabaha yaryar aynu inagu maartay markaynu xaggaa joogno aynu shoobinka aynu ku khasaarayno lacag badan inaynaan yaraysanin sadaqaduna wuxuu yidhi sala allahu alay wasallam rasuulkeennu maartay maalku ma nusqaamiso marka waxaan ku maartay ku soo gabagabayn lahaa aan walaalkayba cabdishakuur maartay aan u dhiibayaa waxaan ku soo gabagabayn lahaa inaa maartay qof kasta oo walaalaheena uu ku soo darsado mashruucan insha allah mar kale waxaan doonaa ciyaalo kale inaan halkan iyo meelo kaleba ka samayno dee markaa insha allah waxaan rajaynayaa inuu ilaahay ka baryaa inuu ilaahay camalkii naga aqbalo cid kastoo maartay u dadaashay cid kastoo lacag ku bixisay cid kastoo maskax ku bixisay gedigood waxaan maartay ilaahay uga baryaa inay ka maartay ilaahay inaga abaal mariyo dadkana oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku anfaco maantana dadkan waa dad shircsan cid kastoo wax tartana way baahan walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahadle mar labaad waa aragnaa mashruucu qaabka uu fulay ilaahay baa subxaanahu wa tacaala keenay ilaahay baana ku mahadsan ilaahay baa ku maaragtay maraarujiyey dadku inay saa yeelaan dad badan baanu u samaynay hawshan oo kale oo ay ka mid yihiin agoomo dad jilicsan dad aan awood u lahayn dad badan oo maaragtay aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celiyeen waxaa jirta oo kale in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaa aanu maaragtay agoomaha ahaa qaar abayeesho dhintay oo beerihii ay ka qallaleen oo u cadilnaa arrin yar amba hal ceel u cadilnaa markii ay noloshoodii wax badan ay iska bedeleen dadka fikirkaa keenay ee soo curiyey waa dad aad u khayr badan baanu rajaynayna ilaah subxana wa tacaala sidaan horumar u sheegnay miisaanka xasanaadka ilaah subxana wa tacaala ka siiyo oo qof walba niyadiisa allaha u aqbalo camalku niyo kama soo hadho waxaan maaragtay jirta oo kale baahiyaha jira meelo fogfog baa jira oo aan weli aanay gaadhin ceelashu amba aanay jirin waxa maaragtay loo qabto badani waxaa iska jira hay'ado badan oo waddanka mara oo waxyaabo yarar oo maaragtay fudud qabta oo aan magacooduna waaweyn yahay laakiin sida manfacooda uu u yaryahay waxaa u aragnaa mashruucan inuu socon doono insha allahu tacaala dad badan ay ka soo qaybgeli doonaan ciddii ka soo qayb qaadatay iyo ciddii soo bixisay iyo ciddii kale iyo ciddii duubtay iyo ciddii kale waxaan leenahay ilaahay abaalkiina jannaha ka dhigo baaraka allahu fiikum وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم ارحمنا وارحم أولادنا وارحم أزواجنا وارحم ذرياتنا. اللهم اغفر ذنوب والدينا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم يا عز الإسلام، اللهم يا رحمن يا رحيم